inta waxaad ku soo dhawaataa shabakada wararka ee Waxsoo Sheeg News waxaad nagala soo hadlaysaa magaalada Shuluq ee wadanka Switzerland imikana toos waxaad ugu jirtaa khadka telefoonka bal marka ugu horeysa waxaad nooga warantaa xaaladda taliya doolaal oo ah aabaha wadooyinka u dambeeyna ku xidhnaa magaalada Hargeysa waan dhawahay aad mahadsantihiin waan salaamayo dhamaantiin aad mahadsantihiin waxaan aabahay ku xiran yahay maalintii 9aad miiska saraakiisha wuxuu ku xiran yahay dulmi cad oo loo geystay waxaan markaan baadnay ama aan ogaanay ama arrimo kala duwan oo aan isla eegnay waxaan ogaanay horta marka ugu horeysa xarigiisu inuu la marin habaabinayo laakiin hal meel uu ka soo baxay halka meel oo ah maalintii uu Ingiriiska uu ku bixiyay waraysigu ku bixiyay in laga raac waraysiguna waxa halgankii السلام شخصيات gaar markay iska dhaxarki waayeen ama uu waa nin run badan aabahay sidoo u dagaal macnaha cadda ama uu geesiga oo habo una hadal cad yahay marka sida daraadeed waraysigii uu bixiyay oo runta ka sheegay ayaa waxa laga daba socdaa shakhsiyaad iska dhaxarki waayay daraadeed marka aabahay waxa uu ku xiran yahay waa xaq daracad saaka waxa la geeyay maxkamadda waxa lagu geeyay afduub waxa family tagay subaxnimadkii waxa la maxkamad lama saarayo haddana markay guriga ku noqdeen ba waxa loo yimiyeen aabahay waxa la kaxeeyay maxkamadda la geeyay wala soo dhageystay si kasta ay ahaataba dulmiga ku xiran yahay ma qabo macnaha waxa yaabaha lagu xirayo marin habaabin caadiyana waa lagu hayaa way hinda hadii aabaha maxkamad la geeyo aad noo sheegtay saaka kiiskiisa maxaa lagu soo oogay si dacwada loo keenay maxkamadda la dhageystay ama kiiska lagu eedeynay maxaa nooga tilmaami karaysaa kiiska lagu eedeynay maalintii ugu horeysay lagu soo qabtay ee macnaha la yiri waa lagu soo eedeeyay kow maalintii ugu horeysay wuxuu ahaa ciidamo ayad ka cadoomisay markii uu xidhnaa 6 cisho kadib waxa lagu yiri waxaad xidho la leedahay xamar morgana Hargeysa ma iman karo doolaal Muqdisho ma tagi karo taas inta kaga jawaabaya way hadii imku muddo 9 cisho ku xidhay miiska saraakiisha oo sheegtay in la geeyay saaka maxkamadda bal ka waran xaaladiisa caafimaad maadaama uu yahay imka taliyo nin weyn oo wayeela wallahi xaaladiisa caafimaad ma fiicna way maxaan buu leeyahay maxaankiisu aad buu xun yahay waqtiyada qaarkood habeen barku ku kacaya markuu ku kaco cid ogi ma jirto awal de family-giisii caruurtiisii uu dhex joogay ka warhayay habeenkii u toosayay maxaankiisa jeekimayay imika waxa weeyaan qof aqoon cidla ku xiran hadii uu wax ku noqdo inkastoo de aanu garanayna meeshaan u raacanayna haddana waa ninaan caafimaadkiisa fiicnayn oo maalinkan maanta adii maxaan ku la yaqaan wuxuu yahay marka leedahay waxaanu garanaynaa meelaan u raacanayno maxaad uga jeedaa waxaan oo jeedaa waxa weeye dadka xidhay ee dulmiga ku xiray hadduu xaq ku xiray aabahay waa bilaadan dambi uu gali karaa laakiin xaq kuma xidhna oo waayo marka maanta dambi la xiray dalbaadishay ee haddana brutal ay yiraahdo waxbaad xaday waa laba dambi oo kala gaara in la yiraahdo waa lagu xidhayno waa waxyaabo aan macquul ahayn way waxaad sheegtay in saaka la geeyay maxkamad ma jirtaa lawyer isagoo doodaya oo dhankiisa ka socda maxkamadda joogay lama ogolaan fadhiga koobaad lawyer lama ogolaan laakiin lawyerkii insha Allah biidnillaahi kariim fadhiga labaad oo la yisoo la dhageysan doona lawyerku ka qayb gali doona marka saaka dacwada waa la dhageystay laakiin wax go'aamo lagama soo saarin waayo de marka lawyerka si diyaariso ama waqtiga lagu qabto qofka maxbuusku ama ninka mas'uulka xaq wuxuu leeyahay aabahay maxbuusku ka weeyahay uu xaq u leeyahay in loo sii sheego in kadib lawyerkiisa la diyaariyo laakiin afduub baa lagu geeyay marka saadaradeed baan xitaa saaka lawyerku war wahaynin waa sax imika waxa sheegtay in kiisas kala duwan loo haysto aabaha oo mar la leeyahay kicin marna la leeyahay xamar adigu ma la xidhiidhay aabaha si gaar ah ma ula hadashay arrinkiisa ma ka wareysatay arrinka lagu soo eedeynay isaga aabahay horta telefoon ma haysto haddaan kala xidhiidhi lahaa dee amaan toos ula xidhiidhi lahaa laakiin de family-giiba u taga laakiin aabahay wax dambiga uu shaqo ku leeyahay bari baan ka hayay waana ku kalsoonahay oo qaranka uu soo dagaalamayay ama uu macnaha uu soo naafoobay ama macnaha uu madaxiisa lafaha arigu ugu jiraan ilamaha aabahay xamarka doorbidaayo
mana aha inuu ciidamadiisii ama dadkiisii uu kicinayo oo ma kicinayo laakiin uu shakhsiyad aabahay abaaraya weeye ayaa waxaan ka dambeeya mar haddii uu xidhay qarankiisii u soo dagaalamay oo maxay tahay uu Hargeysa ku xidhay miiskii saraakiisha maxaad adigu ugu eedaynaysaa cid gaar ah oo leedahay shakhsiyad gaar oo dan isaga ka dhaxarkii ay baa xidhay shakhsiyad gaar ah xidhay waxa lagu eedaynayaa qarankiisa uu soo dagaalamay qarankaagii aad u dagaalantay oo naftaadu u soo hurtay oo aanad family-gaaga ka warhayn maalinta dagaal ku jirtay oo aad wax kasta uga go'day in si dhib yar lagu xidho waxa weeyaan wax aad afka uga weyn waayo waxa la kari karayay isagoo gurigiisa jooga in la yiraahdo maxkamadda laga yeero dacwadaas lagu haystaa kow inta la afduubto in magaalada laga qabto oo aabahay la geeyo xabsi kow waa tukoobada waxay tahay talabaad qarankiisii wuu xiran yahay qarankayga haddii uu dulmi ugu xidho qarankaygii maaha marka ugu horeysa muwaadil kasta wuxuu leeyahay haddii kiis lagu soo eedeeyo in la xidho sharcigana la horgeeyo imika mudduu xidhan yahay saad sheegtay saaka maxkamad la geeyey maxkamaddii waa la dhegaystay dacwadiisa iyo kiisaska lagu soo eedeeyey inkastoo leedahay laba kiis baa la daba wadaa labadan kiis ee lagu eedeynayo ma u malaynaysaa inay cadaalad tahay oo maadaama maxkamad la geeyey may cadaalad maaha intuu lixdiisa ku jiraayay maalinta sagaalinta maxkamad la geeyay horta maalintii labaad baa la geyn lahaa maxkamadda ooyo maxkamadda waa loosii diyaarin lahaa oo dee ama gurigiisa laga soo bahaleeya haddii ay dhacdaba in la geeyana dee maxkamad baa laga geyn lahaa waxa weeyaan markii iskii macnaha ciidamada kacdoomisay dana waa la wareejiyey waxbaa lagu waayay ayaa la yidhi halkan iyadoo khadku kaa gogo'ayo joogi karta xamar waa lala hadli karaa hadduu la hadlayo hinda jaamac doolaal imika maadaama maxkamad la geeyey aabaha oo fayskii hore dacwadda la dhegaystay way idin qorshaysan tahay inaad maxay tahay lawyer u qabataan oo ma ku tiri jirta inaad dacwaddan halkaa kasii wadaan dacwaddu in lamaayo ay macnaha ay laga soo garbaxayo oo ay noqonayso wax cad oo lagu haysto waanu daba soconayna lawyerkiina waa diyaar in lamaayo ay arrintu kasoo afmaraysana waxaanu ku qanacsannahay maxkamadda in lamaayo halka ugu dambaysa lasoo taabto oo aabahay caddayn cad lagu keeno waayo wuu ka weeyahay nin mudawaan lagu soo xidho aabahay waayahay waraysigana intaasaan kusoo koobaynaa aada iyo aad baad mahadsan tahay hinda jaamac doolaal oo joogta dalka Switzerland gaar ahaan magaaladiisa Suluk joogta aad baan kaaga mahad celinaa waqtigaaga qaaliga aad na siisay aad baa u mahadsantahay walaalo